su-aasha marka isweydiinta mudneed oo social media dhex wareegaysay oo socotay waxay ahayd Sharmaake iyo Malyuun ma kala tageen. شهر رمضان شهر رمضان السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ولا قالقة وادن سلامية سلام كدب وقرين بهدات قف عصب سو دو نقصه بير سيدو كل مقال كان لايك تاكي لا مسي مقالك وبها اوكي سيدا تتر كسو aragteen ba Sharma Boy ayaa goordhow arin maalmaha dhan taagneed oo macnaha shak ku jirtay si cad u sheegay arintaas oo ahayd Sharma Boy iyo Malyuumaanka ma kala tageen haddaba Sharma Boy dad badan ayuu shak ka bixiyay oo arintii ayuu si caadi ah u cadeeyay waxa ka jiro ayuu sheegay wuxuuna sheegay in isaga iyo Malyuumaanka ay si cad u kala tageen dabcan ceeb maaha in la kala tago wiligeeda la isguursan jiray wiligeeda la kala tagi jiray Sharma Boy ayaa si xushmad leh arintaas uga soo hadlay isagoo ixtiraamayo xaaskiisii hore ee Malyuumaanka dabcan Sharma Boy ma sheegin wax eed ah maadaama dadka markay isfuraan eed isku jeediyaan tusaale nin naag markay kala tagaan ninka haduu hadlo gabadho eedeeya gabadha hadii hadasho ninka eedeesa laakiin Sharma Boy isagoo xushmad u haayo xaaskiisii hore wax eed uma jeedin sidoo kale to wax cabashana ma soo jeedin dadka buu shaki bixiyay wuxuu dhahay wararkii maalmaha la xmarayay waa sax aan dabcan kama soo hadlin maalmihii hore wax been baa mooday maxaa yeelay aniga ma jecli wax aan hubin inaan ka hadlo hadoo kale to waa ka hadli karaa hadoo kale maadaama hadaltan uu isaga afkiisa u ka qirtay Soomaalina ay tahay itus itabsi isagii oo dhahay xaaskii hore waan furay waa kana muuqaalka marka ma jeclaani inaa waxa oo aan hubin aan ka hadlo maalmihii hore dhan waa la saddex maray wararkaas waa maqlaayay sidoo kale muuqaalada furiinka ah iyo haday kala tagaan nin marka hore isqabi ani ma jeclaan muuqaalka dhigo balbalaarkii sidoo kale waa u jeedin shalayto wax muuqaal ma soo duubin cod baan jeclaan kaga soo hadlo maxaa yeelay nin xaaskiisa kala tagay waa foolxumo in aad muuqaal soo fadhiisato anyway Sharma Boy maanta la joogo waa iskaabolo sida waafkiisa uu ka sheegayo wuxuuna leeyahay aniga iyo xaaskii hore waan kala tagnay waliba si sharaf leh ayaan ku kala tagnay Sharma Boy waxyaabaha lagu amaanayo waxa kamid ah muuqaalkan markuu soo duubay kadib wax eeda muujinay xaaskiisa hore xitaa waxba kama sheegan dadka qaar way is eedayaan way is jiidaan laakiin ninkan xaaskiisa hore wuxuu dhahay sharafa u haya wax eeda uma jeedinay dib mu u qabi taas waxa la iska rabo gabadha marka furto waa inay walaasha oo kale ta noqotaa laakiin dad qaar markay is furaan way is caynayaan way is eedeynayaan daliil iyo wax isku jeedinayaan wax la mid ah waxa jeclaa inaa halkan ka daaro muuqaalka Sharma Boy oo arintaasi si sax ah uga hadlayo isagoo le aniga Malyuumaanka waan kala tagnay wararkii maalmahan dhan lisla dhaxmarayeen waa war sax ah bal muuqaalka ila daawada Sharma Boy oo afkiisa ka sharaxayo isaga iyo Malyuumaanka inay kala tageen maadaama Soomaali ay tahay itus itabsi muuqaalka ila daawada Soomaali Maxamed horta inta xanta jecel waan salaamaya waxaan rabay inaan ka hadlo oo muhiimna ila noqoto inaan ka hadlo horta Ilaahay adduunkan wuxuu u weyneeyay oo u balaariyay in ay dadkiisa ku kan nabad galaan muslim iyo gaal inta uu abuurtay su-aasha marka isweydiinta mudneed oo social media dhex wareegaysay oo socotay waxay ahayd Sharmaake iyo Malyuun ma kala tageen horta aniga Malyuun si sharaf leh aan isu guursanay maanta si sharaf leh ku kala tagnay waliba intii aysan ma kala tageen iyo waxaas ay soo bixin ka hor aan ayada kala dhamaanay laakiin arrinkeena social media ma keenin haddana daruuri way ila noqotay inaan hadeertaan dadka u sheegaa wax qalad kuma kala tagin gabar wanaagsan oo isqabna walaashay ahayd kala dhamaanay okay guys waa maqasheen umaleemayeen hadda kadib warkaas cid uu shaki kaga jiri doono Sharma Boy iyo Malyuumaanka waa kala dhamaadeen waa ay kala tageen adduunka ayaa sidaas aaday waxa u maleynayaa daa qaldan in canug ay u hayso waa hadii aan qaldaneen dabcan Ramadan waayna wixii aan hubin inaa ku hadlo ma doonayo laakiin mar dhaxdaas uur ay u lahayd maaqaas uurkaas meesha ugu dambeeyay u dhashay cunugaas u maleynaa marka tooda soo dhamaatay in isfuraan ayaa qorneed ceebna maaha nin naag may kala tagaan dadka qaar waxa u jeedo comment soo qoray Sharma Boy ayagoo dhahayo war gabadha maxaa u furtay
haddii lisfahmi waayo caafimaadka wuxuu ku jiraa in lagala tago meeshii lisdili lahaa liscayn lahaa oo social media liskugu soo fadhiisan lahaa. dadka qaar furiinka waxunay ka aaminsan yihiin ceeb maaha in lakala tago caafimaadka ku jiro oo qur-aanka lagu sheego oo diinta farayso xaaskaaga inaad furto haddii aad isfahmi weysaan. furiin maxaa la soo dejiya horta furiin maxaaba loo dhahaba. marka Sharmaboy waxaan hal arrin ku amaanaa. halka arrin waxay tahay maadaama wax caaya afkiisa ka maqlay dad joog tira badan kala tagay oo YouTube ka caanka ah imisa caysa imisa tusaale inaa usoo qaata ma jeclin dad marar kala tagay laakiin idinku waa dareemi kartiin imisa inta kala tagta eed iyo caay iyo qarrac isu soo jeedisa laakiin milyuumaanka afkeedana caay kama maqlin Sharmaboy afkiisana caay kama maqlin. marka inuu Sharmaboy maad soo fadhiisto oo dhawaan fure waa wax loo baahan yahay maxay la dadka dhan arintan shakiya kaga jirta. marka Sharmaboy inuu dadka shaki bixiyo oo soo fadhiisto oo dhaaware war Soomaaliya la socda gabadhaas aniga waan kala tagnay calafkeena soo dhamaaday taas la socda ha wax loo baahan yahay maxaa yeelay isagana hadii la kaftamo suuqa ka xirmi lahaa maadaama iskaabul uu yahay oo gabar walba iska dhici lahayd inuu milyuumaan ka qabo ayadana suuqa ku xiri lahaa maadaama ayadana nin walbo doonaya markii inta la guursan ka hor isdhahaaya naagtan waa la qabaa qoftaan waa la qabaa oo isdhihi lahaa. marka inuu soo fadhiisto uu dhaho waan furay waan kala tagnay Soomaaliyay la socda waa wax wanaagsan. dadka qaar waxay sameeyaan camal ma sameeyaan. marka Sharmaboy weligiis balajan oo ahaa. marka adiga bal furiinkan isaga ah sidee u aragtaa commentiga fikirkaaga saliimka ah nagu la wadaag adigoona cidna ku xadgudbin cidna wax eed ah aadan u jeedin. mar kale muuqaalka Sharmaboy oo dhameystiran ila daawada waxaan idin leeyahay Ramadan Kareem. Soomaali Maxamed horta inta xanta jecel waan salaamaya. waxaan rabay inaan ka hadlo oo muhiimna ila noqoto inaan ka hadlo. horta Ilaahay adduunkan wuxuu u weyneeyay oo u ballaariyay in ay dadkiisa ku kan nabad galaan muslim iyo gaal inta uu abuurtayba. su-aasha marka isweydiinta mudneed oo social media dhex wareegaysay oo socotay waxay ahayd Sharmaake iyo Malyuun ma kala tageen. horta aniga Malyuun si sharaf leh aan isu guursanay maantana si sharaf leh ku kala tagnay. waliba intii aysan ma kala tageen iyo waxaas ay soo bixin ka hor aan ayada kala dhamaanay laakiin arrinkeena social media ma keenin. haddana daruuri way ila noqotay inaan hadeertaan dadka u sheegaa wax qalad kuma kala tagin gabar wanaagsan oo isqabno walaashay ahayd kala dhamaanay.